الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى حيالها أقوى وين كتاب كيس كحرمي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حديث تيس وكجدجي حيالها أقوى وين وحكم الظلمجة قرد الرضا حد جذبك إلهي كتابته وسودتي وسودتي عدالة هي الظلمجة إن لا تجعلهم رسوش الصادرين الرب وصادري إن عدالة حقيقيان ظلمجة لا تجعلمان sidaas daraadeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacaala uu leeyahay addoomadaydiiyow dushayda dulmiga waan ka xarimay dhexdiinana xaaraan baan ka dhigay inaad isdulmidaan ha isdulminina dulmiga ruuxa galay ee baqayiga iyo dulmiga ku jiray sida nabigeena ka sugan sallallahu alayhi wasallam cuquubadiisu ma daahdo nafsigiisuna waa soo degdegaa in badan oo iyaga kamida lama sugo cuquubada aakhira lama sugo saas daraadeed baa nabigeenu sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamay laba dambi wax kaga haboon ma jiro in cuquubadooda la soo dedejiyo iyadoo ay jirto in cadaabkii aakhirana laaban yahay labada dambi waxa way qaraabo goysnimada iyo baqiyiga iyo dulmiga iyo xadgudubka ظلمي نوعيدي سكال الدوان وين نسكي لالين وحن نبينا كسر صلى الله عليه وسلم إنه يري ظلمي جوا صدح مد إلهي ما ضافه مدنا إلهي وضافه مدنا إلهي كما تقول صدح سوق بسمة ظلمي إلهي أوسن دافن وأوسن سامحين روح كل انتنا والنار كواريو دم بدافن أوسن لهين والشركة وربك يا أدومه سئناد وداعي سوحي إلهي لها حقوق ربك أخاصك وإناد عابداء وإناد بريداء وإناد تلسارتاء وإناد كليك كحرنتاء وإناد السجا أطيعداء وإناد شرعي كدقتاء الله تبارك وتعالى حقوقي سأخاصك markaad adoomaha qaar kamida wax ka siisood kala dhaxaysiiso dambigaasi dulmigaasi wax ka weyn ma jiro diiwaanada aakhira yaala diiwaanka ugu khatarsan way dulmiga ugu halisan way sidaas daraadeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacaala inoo sheegay luqmaan markuu wiilkiisii waaninayay wuxuu ku yidhi yaa bunayya laa tushrik billah wiilkaygi oo ilaahay adoomadiisa waxa wadaajinin ilaahay xaqiisa ha ku xadgudbin maxay yeelay inna shirka la dhulmun azim shirkigu waa dhulmi weyn dhulmi ka weyn ma jiro sababtoo wax way rabbiga isaga ku abuurtay asaga inta kula ekaysiiyay keligii baa gacanta kugu haya asaga ku maamulaya asaga ku irsaaqaya لما وداغو ملكيغا مامولكا ارزاقيدا ديليدا نولينتا اسغا ماموليا كونكن لما وداغو سيده بعد حقي سعيد كلا wax uga siinaysa marka dulmiga ka weyni ka waay rabbiga tabaaraka wa tacaala kaligi caabud dambi ka weyni ma jiro allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yiri shirkiga ruuxi ku dhintay alla dhaafi maayo dunuubta intaada kala soo la dhaafaa inta kale ruux hadduu ku dhinto ka soo socda ka hadlaya qodobka xige ilaahay waa saamixi karaa hadduu doonana adoonkiisa waa u cadaabi karaa laakiin shirki ruux ku dhintay rajo ma leh saas daraadeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacaala keliya ruuxu inuu camalkiisu baaba'ayo ma aha keliya inuu dulmi yahay xataa wixii kaleed samaysay ku xadgudubto oo aad shirki la timaado camalkaad samaynayso dhan waa hoobanaya waa baaba'aya kuwa khasaaray baadna ka mid noqon allah keligii caabud kuwa shukriyana ka mid noqo baa la yidhi nabiga salawaatu rabbi wa salaamu calayh أنبياء إلهي مركو إلهي كهل ليو إن بدن معيضو ذا تلمامينا
وحوري ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أنبياء إلهي الشرك مقلان لكن أرنت وحوي ويش جورع ديبوها كوكوس قاتي خطاب كأنبياء لو تشيدينيا لكن وح الله وضعي هذا الكود عيوه وأمضهوي إياك أعني واسمعي يا جارة هذا الكود نقول نودعيه سيداس دراد الظلم جوين والشرك إسكتشر إسكنا إلالي ماشي لقول شيء أنا كفقو أكو خمار دين تادي عقيدة ذات نوع اللباد النبي يقول صلى الله عليه وسلم ظلم نوع عيسى اللباد أو الله ضافه وحوي والظلم الضونك ونفتي صدظلميه كنا صابسا حق إسقي ربي كدحية حقوق ذو الصدح حق إلهي وجونية وأضم ضين حب كلهين حق أضم ذو خاص إيه حق الله نقيب كليه هي أضم ذو نقيب كليه اسكتشرا سيدا سيفوق هذا أقيبيان ذنوب تأجليسو هديت هي حق ربي كليه أضم ذو أين الشقة كلهين علاقة أيسن للهين وحي ربك كار ربي بعد قشي وحكو أمري واجبات ضيع ذي وحقوق ذا أذي ربك إذن كرد حيسن عدك لعلاقة للهين ذنوب تهلك لقله إلهي تبارك طبعا شركية كسوكية الله وارضافا لأن ربك تبارك وتعالى ونحريس بدنيه نحريس تيسونا وكبضنتهي عذاب كيسي عرديسة سيدا القرآن كنا تلمامي النبي كنا شيخ صلوات ربي وسلام عليه waxaa dhici karta adoonka dunuubta noocaas ku dhintay Allah tabaaraka wa ta'ala tahta al-mashi'a haduu doono ilaahi waa cadaabaya laakiin haduu iimaan ku dhintay akhiran waa uu laga soo saariyo janno ku dambayn doona laana ruux iimaan ku dhintay haba yaraade naar ku waari maayo waa dhici karta in la geliyo laga gooyo wixii uu galay laakiin naar ku waari maayo waxaa kaloo dhici karayta rabbi tabaaraka wa ta'ala inuu iska saamaxo iska cafiyana waa suurtagal nooca labaad ee dunuubtu kaas weeye ama dulmiga noociisa labaad ee nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wa alihi wasallam nooca saddexaad ee nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam waxa weeye dulmi uusan ilaahay deynin kama tago waa dulmiga adoomadu ay dulminayaan allah deyn maayo tabaaraka wa ta'ala ilaa uu kala qisaaso oo xuquuqdooda uu kala siiyo iska dhaaf aadamaha iyo jinka iyo mukallafiinta iska badaay thaqalaynka iska badaay hatta bahaimta iyo duur joogta iyo xoolaha rabbi tabaaraka wa ta'ala maxkamadiisu waa inay u kala qisaaso dulmiga isu geysteen nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wa tilmaamay ila ridi gees kala hayd ee midda aan gees kala hayn hardiday إلى إلهي أكل قصاص تبارك وتعالى أضمد حقوق ذا وكلا سينيا شننا لآدي مايو عذابنا اللو دريري مايو إلى حقوق ذي لكلا قصاصه أضمد وحي لهايين لكلا سيو سيدا سدراتي حقا سينا وحقاس هذه سجى إلالي نبي أنه حكسه صلى الله عليه وسلم إنه روحي ظلمي قلي وولالكي ظلمك قلي oo khalad uu ka galay walaalkii iyo dulmi uu ka galay agtiisa uu yaalo cirdi iyo sharafkiisa ku xad gudubtay xoolihiisii baad qaadatay dhiigiisii baad daadisay waad xamatay dhibaad u geysatay xuquuqda leeyihiin agtaada haday yaalaan nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ka xalaalayso ruuxii xaqan iska laha inta aan la gaadhin maalinta qiyaamada oo dirham iyo diinaar iyo lacag iyo adduunyo aan waxba lagu kala qaadanaynin maanta waxa way shilin hadaad siiso ama iska celiso inaad qancisaa laga yaabaa inaad iska sasabtaa laga yaabaa inuu iska ka cafiyaa dhici karta adduunyo kugu saamixi karaa maalinta qiyaamada laakiin adduunyo meeshaasi ma taalo la isku furto madax furasho ma leh nabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi dhalim kan dulmiga galay hadduu camal saalixa la yimid qadarkii dulmigu dhanaa camalkiisii saalixa laga soo goynaya markaas waxa la siinayaa dadkii uu dulmiga ka galay salaadiisii soonkiisii xajkiisii acmaashiisii waa loo qaybinaya hadduusan wax acmaal saalixa lahayn ka war nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam kuwa dulmiga ka galay dunuubtoodii baa la soo qaadaya qadarkii dulmigu galay qiyaastiisii baa laga soo qaadaya dunuubtay galeen kadibna asaga dusha laga saaraya
kadibna naarta lagu kaxaynaya xadiis kale nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri war ma taqaanaan ruuxa caydha ummadayda ruuxa caydha ma taqaanaan waxay rasuulka ilaahay anaga caydh waxaan u naqaanaa inaan xoolo haysan lacag haysan hanti lahayn saasaan u naqaanaa caydh nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ummadayda ruuxa caydha waxa weeyaan waa ruux maalinta qiyaamada iimaan doona salaad buu la iimaan soom buu wataa wuxuu wataa muxuu ahay zaku wataa acmaal waaweyn oo soo shaqaystay buu wataa dhanka kale mid buu caayay oo meesha taagan mid buu qadfay oo meesha taagan ku kalu xoolihiisa cunay baa taagan miduu dharbaaxay baa taagan miduu dhiigiisa daadiyay baa taagan kulli meeshay soo safanayaan waxay leeyeen rabbi oo xaqanagi hana laga siiyo nabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi kan xasanaadkiisi baa qayb laga siin kii uu caayay kii uu qadfayna xasanaadkii waxba laga siin kii xoolihiisa cunayna qayb baa la siin kii dhiigiisa uu daadiyayna qayb baa la siin kii uu ku xadgudbayna qayb baa la siin markii la qaybiyo xasanaadkiisii wuxuu soo shaqaystay hadii ay dhamaato xasanaadkiisii khayrkiisii la dhameysay dad baa wali taagan oo safka ku jiro xuquuqdoodii la wuxuu ahaa afkiisa iyo adinkiisa midna aan controlling buu ahaa khalaa'iqdii uu dulmiyay baa ka badan xasanaad ku leeyimi allah muxuu sameeynaya tabaaraka wa taala wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam dambiyadoodii baa laga soo qaadaya dusha laga saaraya kadibna naarta lagu tuuray wal iyadu billahi alaykum ya ka khasaaro badan ruux ma adduunyada intuu jooga dadaalayay maxaa xaj ah maxaa umra ah maxaa sadaqa ah maxaa salaad ah maxaa wanaag ah maxaa jihaad ah maxaa muxuu ah dacwo ah maxaa khayr oo meesha soo yaalo oo buuro leeg haddana maca dalika waa la qaybsaday oo dad baa qaybsaday isagana dunuubtoodii buu naarta ku galay wariyaa ka khasaaro badan tacab khasaar sidaas daraadeed baa rabbigeen quraanka kariimka wuxuu ku sheegay maalinta qiyaamada markay wajiyadu hogtaan oo dulloobaan oo waxa la waayo maalinka isaga yaa khasaaray waqad khaba man hamala dhulma maalinkaasi ninkii isagoo dulmi xambaarsan yimid kaasa khasaaray buu rabbi yiri tabaaraka wa taala oo uu dhamaatay war dulmiga iska ilaali war waad dhiman oo rabbiga baad hortagi oo waa lagu la xisaabtami oo hawl baa horeysa hadii ay noqoto un maanta waxa ku hor yaala kaliya aad fiiriso cun oo cab oo laad oo haraati oo ku xadgudub oo dhigtaadi oo xamo oo hawba yeelin oo dacaayade oo meesha doonto dhig xageed ku socotaa miyaadan rumaysnayn aakhiro miyaadan rumaysnayn rabbiga la kulmi doonto miyaadan rumaysnayn maxkamadda cadaaladdu inay dambayso miyaadan rumaysnayn adduunkan haddaad fakato inaadan aakhiro fakan doonin ilaahay laga boqo dulmiga hal iska ilaaliyo kii la galayna hal laga toobad keeno kii aadamahana hal laga xalaaloobo celi wixii xuquuqda waxa ugu weyn oo ugu halisan oo ugu khatarsan xuquuqda dadweynaha kursiga iyo jagada ummaddu ay leedahay xoolaha iyo hantida ummadda guud ee ka dhaxeeya ta ugu khatarsan taa iyada away waana midda maanta sida waraabo ooman oo kale ama gaajaysan oo kale la halabsanayo way ood moodo rabbi tabaaraka wa taala quraankiisa iyo sunnada nabi inay xalaaleeyeen oon xaaraantaba ku jirin waay nin walba meeshaad ka soo gaadho gooso nin walba meeshaad ka hesho qaado nin walba saad u hesho u qaado gurta oo cuna oo ka dherka oo guriga ka dhista oo waxa doontaan sameeya laakiin geerina waa dambaysaa محكمة ربنا وصوصعتا ساد يلي هذا كوتا الله صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك